الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan kusoo gudi jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa darsigeeni afaraad wuxuu nooga bilaabanaa aayadda 6 ee min suurati albaqara qaala allahu tabaaraka wa tacaala ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sabaa-un isku mid weeye calayhim gaaladaasi dushoodii a andartahum nebiga suubanow gaaladaas u digtaya calayhi salaatu wasalaam am lam tundirhum ama gaaladaas aadan u digina waa isugu mid laa yu'minuuna xaqa rumayn maayaan adina ku rumayn maayaan diintana rumayn maayaan khatama allahu waayo allah xiray khatama allahu allah daboolay oo xiray calaa quluubihim qalbiyaalkoodii wax lagu fahmi lahaa allah xiray xaq fahmi maayaan wa calaa samcihim maqalkoodii oo xaqi lagu maqli lahaana allah xiray oo yacni wa calaa absaarihim aragyaalkoodiina waxaa ku jiro ku sugan khishaabatun dabool araggii xaqa lagu arki lahaana yacni aragyaalkaasi waxaa ku sugan oo ku jiro daboola la saaray waana waxaa usugnaaday cadaabun cadaabkaasoo cadiimun weynin badan ilaahi subxaana wa tacala labadan aayad wuxuu kaga hadlaa aayadda 6 iyo aayadda 7 ee suuratulbaqara gaaladuu kaga hadlaa weliba gaalada waa labo qolo waa ilaahay kuwa ilaahay u qoray inay dib kasoo islaami doonaan iyo qolo oon weligood loo qorin oo gaalnimo ku dhimanayo marka qolada gaalnimada ku dhimanaysa waay oo ilaahay u yidhi ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun kuwa dushoodii ku waajibtay kelimada rabbiga oo cadaabka ah xaqa rumayn maayaan marka kuwaas waay horena waxaan kaga soo hadalnay darsigeeni koowaad suuratulfaatixaan kusoo qaadanay sharixeed darsigeeni labaadna 5 aayado ugu horeyso oo suuratulbaqara mu'miniinta ka hadlayso ayaan kusoo qaadanay marka sidaas eed marka waa darsigeeni saddexaad waa cafwan hadaad waxaan idhi darsigeeni afraad waan idhi laakiin ma ahan waa darsigeeni saddexaad waa darsigii koowaad suuratulfaatixaan kusoo qaadanay darsiga labaad 5 aayado ugu horeysaan kusoo qaadanay suuratulbaqara darsigeeni saddexaad waaye marka sidaas waayo ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yihi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay calayhim yani sabaa-un waa isugu mid calayhim gaaladaas korkood a andartahum u digtayaa nabiga suubanow ama lam tundirhum ama aadan u diginaa laa yu'minuuna xaqa rumayn maayaan u dig naar iyo janno ugu dig u sheega xaqa ama ka aamus waa isugu mid xaqa rumayn maayaan ilain gaalmo inay ku dhintaan alla u qoray khatama allahu allah daboolay marka calaa quluubihim qalbiyaalkoodii wa calaa samcihim maqalkoodan allah dabool xaq maqli maayaan wa calaa absaarihim aragyaalkoodan waxaa ku jiro ku sugan khishaabatun dabool oo xaq arki maayaan walahum waxaa usugnaaday cadaabkaasoo cadiimun weynin badan ilaahi subxaana wa tacaala halkan oo min annaasi laga bilaabo ilaa laga gaaro yaa ayuha naasu icbuduu laga gaaro aayaddaas yakaadulbarqu 13 aayadu ilaahay wuxuu nooga hadlayaa munaafiqiinta 5 aayad mu'miniinta lagu soo hadlay 2 aayad gaaladu ilaahay uga hadlay waa 7 13 aayadoodna munaafiqiinta lagu hadlaa waa 20 marka munaafiqiinta waa gaalada inay ka shar badan yihiin arkay maadaama 13 aayad ilaahay uu ku qaadaa dhigay ilaahay wuxuu yihi jala jalaaluhu wa min annaasi dadka ayuu kamid ahaaday yani dadka waxaa kamid ah man duul yaquulu dhahaya aamanaa billah allah ayaan rumaynay wa bilyawmi maalinkiin waan rumaynay maalinkii alaakhiri dambe walxaal ayay sidaa leeyihiin allay rasuulaan rumaynay maahum aysan ahayn bimu'miniina kuwa allay rasuul rumeeyey yani xaaladda ay leeyihiin allay rasuulaan rumaynay dhab kama ahan waa beentood dhab kama ahan yuqaadicuuna allah hadalkaas waxay leeyihin yuqaadicuuna allah ilaahay ayay ku dagayaan yani yuqaadicuuna munaafiqiinta waxay dhagrayaan allah ilaahay ayay dhagrayaan iyo waladiina kuwii yani aamanuu allay rasuul rumeeyey ayay dagayaan wamaa yaqdacuuna munaafiqiinta dhagri mayaan ilaa anfusahum nafyaalkoodii maahane wamaa yashcuruuna mana dareensana inay nafsadoodii dhagrayaan iyagu waxay la tahay inay ilaahay iyo muslimiinta ay dhagri karaan ila waxay leeyihin laa ilaha illa allah ay leeyihin ilaahaan rumaynay beentoodna waay dhab kama ah iyaga waxay umaleeyaan dhiigoodii maalkooda loo badbaadiyey mu'miniinta inay yani ka caqli badiyeen umaleeyaan ilaahayna yani la gaadi karo sidaas ma ahan ilahi wuxuu yihi wamaa yakdacuuna ilaa anfusahum wax kale dhagri maayaan ilaa nafsadoodii dhagraayaan laakiin wamaa yashcuruuna isma oga oo ma dareensana sidaa uma oga marka waa dad yani aanan
qiimo badan lahayn. ilaahay wuxuu yidhi fii quluubihim munaafiqiinta qalbiyaalkooda waxaa ku jiro maradun cudurkaasna cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu ku sheegay shaki inuu yahay, shakiyaa ku jiro oo diintay ka shakisan yihin. fazaadahum allahu, ilaahay wuxuu u ziyaadiyey munaafiqiinta maradan cudur oo loola jeeda shakigu ku jiray oo diinta ay ka shakisanaayeen, ilaahay shaki kale u ziyaadiyey. fazaadathum rijsan ilaa rijsi, yacni qurunkii ku jiray iyo shaki kale loogu daray. walahum waxaa usugnaaday munaafiqiinta cadaabun cadaabkaasu aliimun mu'limun jirka xanuujiyo, bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshay aadeen sababkiisa ugu sugnaaday, yakdibuuna kuwii xaqi beeni, ama bimaa kii sababkiisa ugu sugnaaday kaanuu ay ahaayeen munaafiqiinta yakdibuuna kuwii xaqa beeni. beenintaas xaqa ay beeniyin sababkeed ayay cadaab xanuun badan ay ku muteen munaafiqiinta. xaqii qalbiga ka beeniyeen, afkeena ka sheeganayaan. waa dhibaato. su-aalaha meesha taagan, su-aasha waxay tahay munaafiq maxaa la yidhahdaa? munaafiqa ama nifaaqa waxaa la yidhahdaa nifaaq huwa idhaaru lkhayri wa israaru shari. waxaa la yidhahdaa nifaaq in khayr iyo isaannimo iyo salaad iyo wanaag aada afka ka muujiso, shar iyo gaalnimana aada caloosha ku qarsataa la yidhahda. meeqa u qeybsamaa? laba u qeybsamaa, nifaaq ictiqaadi iyo nifaaq camali. nifaaq ictiqaadi waxaa la yihahdaa walaalayaal midka qofka uu qalbiga ka aamino diintan inay baadil tahay, nebigana uusan jirin, maxaa la dhihi jiri diinta uu ku shakisan yahay, laa ilaha illaa wuxuu u yiri nafsadiisa bisoo ku ilaashanaya iyo maalkiisa. qofkaas waxaa la yihahdaa nifaaq ictiqaadi, qalbiga gaalnimaa ugu jirto, naartuu ku waara hadduu sidaas ku dhinto usan ka toobadkeen. midka labaadna waa camali, nifaaq camali. qofkan diinta waa rumaysan yahay, nebiga waa rumaysan yahay, aayada ilahi waa rumaysan yahay, laakiin camalkiis ficilkiisa munaafiqnimo ku jirto. oo maxay tahay? markuu sheekeynayo beenuu sheega, siduu nebigu uu yiri calayhi salatu wasalaam, aayat lmunaafiq halaatha, calaamada munaafiq waa 3, idaa xadatha kadab. markuu sheekeynayo beenuu sheega, wa idaa wacada akhlaf. markii lagu amaaneysto, yani lagu amaaneysto, idaa wacada akhlaf, cafwan, markii ballan uu galana ballanta wuu ka baxayaa. ayib, waidaa tumina qaana, markii wax lagu amaaneysto amaanada wuu khiyaana. markuu doodayana, yani dooda wuxuu sameynaa yaan laga hadal badin, sidaas u hadla. qofka noocaasa waxaa la yihahdaa munaafiq. munaafiq ku jira waxaa marka dembi weyn oo ku jiraa, laakiin gaal ma ah. kii hore o dhaamaa salaadii diinta oo ka shakisanaa, kan ma ka shakisno, laakiin istatus iyo been iyo ka tahay. marka labadaba ma wanaagsana, labadaas noocbo yani laba wanaagsan ma ahan. marka munaafiqi labadaasaa loo qeybiyaa. qaala tacaala, ilahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waidaa qiila lahum, munaafiqiinta marka lagu yidhaahdo aaminuu diinka rumeeya iyo rasuulka ilaahay rumeeya, kamaa sidin u rumeeya aamana annaasu ay aamana asaxaabatu, saxaabadii nebiga siday diinta u rumeeyeen oo kale sidaas u rumeeya. marka munaafiqiinta hadalkaas lagu yidhaahdo, qaaluu munaafiqiin waxay yidhaahdaan anu'minu ma rumaynaynaa diinta kamaa aamana asufahaau, sida dabaalada iyo waxmagaradka sida u rumeeyeen oo kale miyaan u rumaynaynaa? sufahada iyo dabaalada waxay ula jeedaan saxaabaday ula jeedaan. alaa hooyahay baraarugu yidhi ilaahay, inahum munaafiqiinta hum iyaga keliya asufahaau, nacas iyo wax magarad ah, kuwa caqli fudud ah, walaakin hase ahaatee laa yaclamuuna sidaa uma oga. wa idaa laquu munaafiqiinta markay la kulmaan aladiina dadka aamanuu alla iyo rasuul rumeeyey markay la kulmaan waa saxaabadee, qaaluu munaafiqiin waxay yidhaahdaan aamanaa, xaqa waan rumaynay, diinta waan rumaynay, annaga saxaabadan ka midna, sidaas yidhahdaan. waidaa laquu aladiina aamanuu qaaluu aamanaa yidhahdaan. waidaa khalow munaafiqiinta markay la gooni noqdaan, yani markay la gaar noqdaan, ilaa shayaaiinihim madaxdooda gaalada markay shirarka la qaadanayeen ee la gooni noqdaan, qaaluu waxay yidhaahdaan inaa annaga haddaan munaafiqiin nahay macakum, adinkaan idinla jirnaa gaalooy. sidaasay leeyihiin. markaase gaalada waxay leeyihin haddaad annaga nala jirtaan, shalay maxamed iyo saxaabadiis maxaad ula joogteen, aada ula tukanayseen. munaafiqiin markaas waxay ku jawaabayaan inamaa wax kalamaa naxnu annaga mustahzi-uuna kuwii jeejeesayaan nahay, oo saxaabada iyo diinta waan ku jeejeesayn, waa iskala fooraarsanayn maahane, yani nafsadeeni iyo dhiiggeenaan ku badbaadsanaynay, nafsadeeni iyo maalkeeni ayaan ku badbaadsanaynay, ee islaamnimada iyo tawxiidka dhab nagama ahayn, oo adinka idinla jirna. sidaasay leeyihin. ilahi wuxuu yihi allahu ilaahay ayastahzi-u ku jeejeesaya bihi munaafiqiinta, yacni shirqoolkaas ay maleegayaan ilaahi subxana wa tacala wuu ka warqabaa, intaysan samayninbo allah intuu ku dabagediyo
nabigaa loo sheegay calayhi salatu wasalaam warka munaafiqiinta shirqoolkaasay wadaan ogow markaasay fashil maayaan. wayamuduhum ilaahay wuxuu u ziyaadinaa munaafiqiinta fii duqyaanihim xadgudubkoodii u ziyaadinaa yacmahuuna xaal ay ku noqnoqonayaan yacni xaalad ayagoo ku noqnoqonayo ku maquuranaayo yacni baadilkoodii iyo xadgudubkoodii. marka aayadan waxay kaga hadlayaan munaafiqiinta ilahi subxaana watacala dhibkoodii weli nooga hadla. ilahi wuxuu yidhi waidaa qiila lahum munaafiqiinta marka lagu yidhaahdo yani aaminuu diinka rumeeya kama aamana annaasu maan saxaabadaa loo jeedaa kama aamana annaasu kama aamana asaxaabatu saxaabada sidai u rumeeyaan oo kale u rumeeya marka la yidhaahdo qaalu waxay yidhahdaan yani waxay leeyihin anu'minu diinta ma rumaynayna waaba yaabe kama aamana sufahaa dabaaladii sida u rumeeyeen. wuxuu yidhi saxaabada waxay yidhaahdeen saxaabo badan waxay yidhahdeen waxay ula jeedaan sufahada yacnuuna lacanahum allahu asxaaba rasuulillahi sal alla alayh wasalam waxay ula jeedaan dabaalada saxaabada nebiga ula jeedaan. saxaabada nebiga waa dad caqli badan dabaalama ah ee allah u jawaabay subxaana watacala. wuxuu yidhi alaa waya baraaruga ogaada inahu munaafiqiinta hum iyaga keliya assufahaa doqomo iyo wax magarad ah maxaa yeelay xaqi iyo diintiiy fahmi waayeen. saxaabadana waa dad caqli badan oo xaqiya fahmeen nebi moxamed raacn alayh salat labadaas marka waa caqli badan iskuma dhowo marka saxabada caqli badan walaakiin hase ahaatee lagu noqoy laa yaclamuuna munaafiqiinta sidaas uma ogo annahum hum sufahaa iyaga inay doqomo yihiin iskuma haystaano sidaas uma ogo saxaabaday u maleeyaan. waa qodobka labaad waidaa laquu munaafiqiinta markay la kulmaan aladiina akhyaarta yani aamanuu alay rasuul rumayn waa saxaabada markay la kulmaan qaaluu munaafiqiinta waxay yidhaahdaan aamanaa xaqiyaan rumaynay diintiaan rumaynay rasuulkiaan rumaynay sidaasay leeyihiin. waidaa khalow shayaadiinta markay munaafiqiinta ay la gooni noqdaan ay gaar la noqdaan ilaa shayaaiinihim wuxuu ku fasiray yani saxaabada waxay ku fasireen ilaa shayaaiinihim ilaa ru'asaa'ihim wa kubaraa'ihim min axbaari yahuudi walmushrikiin markay la kulmaan gaalada yahuudda ah iyo madaxdoodii gaalada markay shirarka la qaadanayaan yani waxay leeyihiin waidaa qalo markay la gooni noqdaan ilaa shayaaiinihim shayaadiintoodii yani madaxda gaalada markay la gooni noqdaan qaaluu munaafiqiin waxay leeyihiin inaa anaga munaafiqiin haddaan nahay macakum idinkaa idinla jirnaa gaaloy gaalada marka su-aal waxay weydiine haddaad annaga nala jirtaan shalay maxamed oo la joogteen maxaad yani aad ula duuleyseen maxaad isaga yani aad garab u siinayseen markaas munafiqiintu waxay leeyihin inamaa wax kale ma ahan naxnu annaga mustahziuuna kuwii jeejeesayaan nahay oo maxamed iyo saxaabadiisu waa ku jeejeeseynay diinteeni yani dhab nagama ahayn diintaasi laakiin laa ilaha illa waxaan u niri nafsadeeni maalkeena ku badbaadinayni sidaasay leeyihiin. waa dad inkaar ku dhacday yani meesha dantooda ku jirta bisay raacaan oo diin ma ilaaliyaan munaafiqiinta. ilahi wuxu yiri subxaana watacaala allah u jawaab allahu alla yastahzi uu ku jeejeesaa bihi munaafiqiinta yani ilahi subxana watacaala dad inuu ku jeejees ilahi waa ka nasahan yahay fahmaysaa laakiin culamadu waxay ku fasiren waxaa loola jeedaa qofka markuu cadow u yahay cadowgaagi markaad sirtiisa aad ka warhayso intuusan weerarka soo qaadin aad ka hor tagtood baabi'iso yacni ammaanay kuu tahay soo maa saa darteed shirka meesha munaafiqiinta gaalada ku qaadanayaan ilaahay waa ka warqabaa markaasuu nabi maxamed intuu u gudbiyo gaalada waxaasay ku tashteen uga waaley markay munaafiqiinta soo laabanayaanbu sirtoodii iyo waa la ogyahay waxay soo sameynayeen waa laga warqabaa marka allah ku dabagediye waa wayamudum ilaahay munaafiqiinta wuxuu u ziyaadinaa fii duqyaanihim xadgudubkoodii ayuu u ziyaadinaa xadgudubkaanay ka baxayaan xadgudubkan kale aakhirana muslimiinta markay nuur ku jiraan iyaga mugdiga ku jiraan war nuurkana sii yeelayin markaasaa laleeyahay yani qiila irjicuu wara'akum faltamisuu nuuran war gadaal u laabta adduunka nuur ka soo raadiya marka mugdigaas iyo xadgudubkaas ku noqnoqonaya ee ku jiraan. wayamudum ilahi wuxuu u ziyaadinaa fii duqyaanihim xadgudubkooda yacmahuuna iyagoo ku noqnoqonayo yani yacmahuuna iyagoo ku dhex maquuranaya xadgudubkaasi waaya ulaaika ilahi wuxuu yiri ulaaika kuwaas lasoo tilmaamay oo munaafiqiintaas lasoo tilmaamay oo markay muslimiinta la joogaan diintan rumeyna dhahayo gaalada markay shararka gaarka la qaadanayaanna anna adinkaan idinla jirnaa dhahayo muslimiinta ku jeejeesayo oo saxaabadana doqon iyo wax magarad ku tilmaamayo ilahi wuxuu yiri subxaana watacaala aladiina waa kuwa ishtarow soo iibsaday addalaalata baadida bilhudaa hanuunka kusoo iibsaday famaa rabixat marka ma aysan faa'iidin tijaaratum ganacsigoodii wamaa kaanuu ma aysan noqon munaafiqiinta muhtadiina kuwa hanuunsan yani ilahi wuxuu ku ulaaika kuwaas munaafiqiinta kor lagu soo xusay aladiina waa kuwa ishtarow soo iibsaday addalaalata baadiyay badeec ahaan usoo gateen hanuunka tusaale waxa waaye lacag ahaan hanuunkii lacag ahaan u haystaan suuqay tageen hanuunkiiy bixiyeen